waxa ay lahaayeen xuriyad iyo nolol ay hagtaan oo ay sida ay doonaan uga mushaaxi kareen dalkooda waase ay soo lumiyeen fursadaasi bacdama ay ku xadgudbeen xuriyadda iyo badqabka dadka kale Muudey iyo Maaxi subaxan ayaana banaanka looga soo saaray xabsiga dhexe ee Xamar si loo mariyo ciqaabta dambigii ay galeen loona ilaaliyo nolosha aadanaha iyo danta guud markii gabadheeda ay ugu dirtay biyo uu cabo ayuu nafta dhaafiyay Allah u raxmaday marxuumad Khadiijo Siyaad Maxamed shakhsiga dhagartaasi bahalnimada geysana waa Ibraahim Aadan Nuur Muudey degmada Jilib ayuu isaga qoray jidii jahadiidka oo waqti habow ku jiray waxaana durbaba loola soo cararay Muqdisho iyo nawaaxigeeda ceelasha biyaha ayaana lagu baray isticmaalka birjimka isagoona loo qaatay waliba si degdeg ah qaybta dilalka qorsheysan ee ka howlgasho gobolka Banaadir shaqadii koowaad ayaana ahayd in weedo uu ku dilo muwaadin uu soo basasay horjoogihiisa Maajid qadarta alle iyo fajignaanta waqtigaasi laamaha amniga fashil ayuu soo ku dambeeyay qorshahaasi isku dayay labaad koodii bishii koowaad 2024 abaara qiyaasay bacdul casr waxa degmada Hodan gaar ahaan waaxda Kacaan uu ku dilay Khadiijo Siyaad Maxamed oo afaafka hore ee gurigeeda ay wada fadhiyeen gabar ay dhashay si uu u dago dilaaga ayuu ka dalbaday marxuumadda biyo uu cabo gabadheedii ayeen u adeejisay oo doontay biyaha marka halkaasi ay joogtana waxa uu helay fursadii uu sugayay 3 baalooto ayuu ku dhuftay marxuumadda oo ahayd maamooyinka ka shaqeeya nadaafadda degmada Hodan dhacdadaas waxa isla goobta dilka uu ka dhashay kaga jawaabay ciidamada amniga ee booliiska isla goobta ayeen ku qabteen dhagarqabaha baxsadka ahaa sagaalkii bishii shanaad 2024 ayaa la soo taagay maxkamadda darajada koowaad ee ciidanka dhageysi kadibna maxkamadda ayaa xukun dil toogasho soo saartay 18kii bishii shanaad 2024 kadib markii ay ku hesheen uu ka tirsan yahay kooxda argagixisada ah una qaabilsanaa qaybta fulisada dilalka qorsheysan ee dhagarta ah kana howlgalayay gobolka Banaadir ee isla markaana uu dil bareer ah u geystay marxuumad Khadiijo Siyaad Maxamed oo ka mid ah shaqaalaha nadaafadda ee degmada Hodan Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi qawaariista dhexdeedan looga yeeri jiray Yoonis iyo Maaxi ayaa isna kaliya fakhriina Ismaaciil Salaamiyaan uga soo tagay Hargeysa ilaa uu soo gaaray Jilib si uu ugu biiro qawaariista uuna ka noolaado daadinta dhiigga shacabka Soomaaliyeed tababar uu kaga soo baxay tuulo hoos tagta degmada Saakow kadib ayaa loo soo diray inuu ka mid noqdo jabhad gobolada Shabeellooyinka ku dhuumaaleysata isagoona ka qayb qaatay weerar bulshada oo badankood ka dhacay gobolka afartii bishii afraad 2024 ayuuna ka mid noqday koox jabhad qawaariita ka tirsan oo weeraray guri ku yaala xaafadda Daynile kuna dilay marxuum nabadoon Cabdi Xasan Muxudiin iyo Qadar Cabdu Maxamuud Jimcaale sidoo kalena ay dhaawaceen Cabdullaahi Maxamuud oo hooyga nabadoonka ku sugnaa kadib waxa la noo sheegay in weerar lagu yahay la weeraray gurigana waxa la noo sheegay in deegaan ciidan laba qof oo ciidan ah waxa la noo sheegay guriga dadku joogay inay hubeysan yihiin waxa kale noo sheegay guriga macnaha inuu dadku joogay hubeysan yihiin oo macnaha in la digtoonaado marka adoo warbixintaas la nasiiyay macnaha in hawsha loo socday hawl caynkaas tahay xabad baan la kulanay waa habeen madow anagu waxa ma arkayno hal mar bay xabad nagu bilaabantay abaal baa la isku daahay dadka guriga ku jiraan adoo ay hubeysnaayeen kuwa lagu degdegi kari waayay guriga hore lama geli karin labadii bishii tanaad 2024 ayaana falkan loo soo taagay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida garmaqal kadib garsoorka ayaana 13kii bishii tobnaad 2024 ku xukumay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuumiinta fagaraha fulinta qisaasta ayuu warbaahinta kula hadlay xeeraaliye gaashaanle Ismaaciil Cumar Abshir toogashada kadib maanta ay taariikhdu tahay 1 bishii 9aad 2025 waxa lagu fuliyay xukunkii qisaasta ahaa 1 Ibraahim Aadan Maadey oo loo qisaasay marxuumad Khadiijo Siyaad Maxamed oo ka mid aheeday shaqaalaha nadaafadda degmada Hodan 2 Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi afgarashadiisu ee taa Yoonis iyo Maaxi oo loo qisaasay marxuumiinta kala ah nabadoon Cabdi Xasan Muxudiin 2 Qadar Cabdu Maxamuud Jimcaale wabillahi tawfiiq haliyada nabasugida sirdoonka qaranka ugaarsadayashii ayaana saaka ahaa fuliyaasha toogashada fulinta qisaastana waxaa xaadir ahaa ku xigeenka koowaad ee xafiiska xilaalinta ciidamada gaashaanle Maxamed Cabdullaahi Khaliif iyo saraakiisha amniga ee fulinta u xilsaarnaa Cabdi Fataax Aqyaar warbaahinta qaranka Muqdisho